waxyaabaha horumarka ah ama waxqabadka dawladda federaalka 4 sano ay soo jirtay ay qabatay ay waxyaabaha ugu waaweyn ka mid tahay annaga dawladnimadii Soomaaliya oo muddo 26 sano magaalada Muqdisho aan soo dhaafin maamulkii iyo taladii dadka Soomaaliyeed oo mar walba Muqdisho ku urursanay yaan ka shaqeynay dawladdu ka shaqeysay inay ka soo baxdo waxa aniga waan fursad aan ku faanaya xilliga aniga hoggaanka aan joogay taladii Soomaaliya xildhibaanadii maanta baydhaba lagu dooranayaa garowa lagu dooranayaa cadaada lagu dooranayaa kismaayo lagu dooranayaa dabcan muqdishona qaar lagu dooran doona yani inaanay hal meel ku urursaneyn ee taladii inta baahday halkan doorashada ka socota aniga madaxweynaha jamhuuriyadda waxaan u imiday inaan dadka dhiiri geliyo doorashada in si fiican u dhacdo laakiin dadka wada iyo dadka is dooranay iyo waxa la dooranay iyo dhammaan muxuu ahaay 3,000 oo qof dad ka badan meeshan imaanayo ku codaynay ama magaalada degan ama ka imaanayo dawlad goboleedka qaybaheeda kala duwan iyo meelo kale marka waxay nooga dhigan tahay runtii wax weyn oo aan gaarnay noona muuqda birine doorashooyinka dambe ee 2020 degmada iyo tuulada inay si orda ku gaari doonaan marka wax qabadka dawladda qaybaha ugu waaweyn oo muuqday ka mid tahay horumarka siyaasadda dalku gaaray